Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku soo dhawaada Higsi Technology. Waxaan ahay Maxamed Xirsi. Maanta waxaan qaadan doonaa hadduu alla idmo cashir ku saabsan qaabka ugu fudud ee loo suubiyo round. Round micnaheeda waxaa ula jeedaa in la wareejiyo icono amase la wareejiyo shape lagu dul wareejiyo shape kale amase dhibco amase xidigo wax alla wixii aad doonto. Kusoo dhawaada Higsi Technology. Marka koowaad aan projectii abuurno. Aan dhahno file, kadibna new, kadibna qaabka rabta usoo doorano, kadibna okay. Kadib waxaa imaanay blank page ama page cad oo aan ku shaqayn karno. Si aad u samaysid projectiga aan tilmaamayo, marka hore waxaad tagtaa halkan toolbar, kadibna waxaa kasii tagtaa rectangle bar tools, kadibna waxaa ka doorataa ellipse tool, centerka imaaw, kadibna waxaa samaysaa adoo alt iyo shift haysid cheat oo sidaa u weynee. Sidan markaad samaysid stroke madowga iyo dhexda oo ah white ayuu ka kooban yahay. Haddaad doonto inaad wax ka bedeshidna waa ka bedeli kartaa. White-ka oo dhan black ayaa ka dhigi kartaa. Markan waxaad tagaysaa view, kadibna waxaa soo dooranaysaa alignment. Kadib halkan ayuu alignment ka soo baxayaa amase halkan ayuu ka soo baxayaa. Markaas waxaad dooranaysaa center, kadibna center. Already waa uu joogaa centerka oo mar hore ayaa ku adjust gareeyay aniga. Okay, kan waa shape-kii weynaa. Waxaan rabaa shape-ka sidaan ugu wareejinaya inaan sameeyo. Waxaad tagaysaa halkan oo ay ku qoran tahay ellipse toolka ama rectangle toolska ay ku jiraan. Waxaa ka dooranaysaa prolong tool. Kadib halkan ayaa imaanaysaa, click ayaa ku samaynaysaa. Halkan oo ah 6 sides ayaa waxaa ka dhigaysaa 3. Kadibna okay. Sidan markuu kuugu soo baxo, waxaad samaynayaa, waxaad tagayaa halkan oo select tool ah, kadibna waa yaraynayaa anoo haayo alt iyo shift. Kadib halkan ayaa imaanayaa, space yar ayaan siinayaa oo ah inta uu ku dul wareegi karo. Haddaad doonto ayada laftirkeeda alignment waa u isticmaali kartaa. Waxaad samaynaysaa halkan okay. Kadib maxaa samaynayaa, kadib keyboardkaaga ayaa waxaa ka taabanaysaa xarafka R oo loola jeedo rotate. Kadib waxaa imaanaysaa meesha aad is leedahay waa centerka. Kadib waxaad taabanaysaa alt, kadibna click ayaa ku siinaysaa centerka. Waxaa kuu soo baxaya calaamadan amase daaqadan yar oo ah rotate daaqadeeda. Waxaa marka ugu horeysa dooranaysaa preview, kadibna waxaad dooranaysaa inta ay kala fogaan karaan. Waxa aad doonto ayaad kala fogeyn kartaa. Haddaad doonto waxaad dooran kartaa 4. haddii 4 dooratidna waxaa kuu soo baxaya inta ay wareegayso. Haddaad 10 ama 15 dooratidna inta ay wareegayso. Siday ahaataba ani waxaa dooranayaa 20. Kadib waxaa leeyahay copy. Inta markaa sameeyo waxaa suubinayaa control ama command. Haddaad isticmaashid computer Apple ah, command ayaad isticmaalaysaa. Haddii computer window ah amase Microsoft aad isticmaashidna waxaa isticmaalaysaa control, kadibna control D aad la haynaysaa. Control D ayaa ku celinaysaa. Waa ku celinaysaa. Sidaas ayay ku imaanaysaa wareeg. Waa ujeedaan maxaa sameynay wareeg oo ku halmaala nooca aan markaas doonaynay oo ah inaan wax ku wareejino shape-kan. Markaas haddii aad u malaysid in calaamadan triangle-ka oo kale lagu samayn karo, waa isku dayi karnaa mar kale inaan qaab kale ku sameyno. Aan sameyno marka koowaad kii aan wax ku dhow wareejinaynay oo noo ah alignment amase asaga wuxuu noo yahay wareegeen inuu saxan yahay ayuu noo tilmaamayaa. Kadib waxaad doorataa centerka, kadibna centerka si fiican usii dooro. Markan waxaa isticmaalayaa ellipse tool oo wareegan ayaa wareeg kale kusii suubinaya oo yar yar. Wareeg yariis ayaa doortay, kadibna R ayaa taabto keyboardka, kadibna waxaa dooranayaa centerka ayaa tagayaa meesha is leedahay waa center. Calaamad ayaa kusoo bixi doonta oo center ku qoran tahay. Markaa centerka joogtid, kadibna alt ayaa qabanaysaa. Kadib click ayaa ku siinaysaa.
20 ayaa inta kugu suubiyey, markan waxaa ka dhigayaa 25. kadib copy ayaa leedahay. intaas markaad samaysid control ayaa qabanaysaa ama command haddaa isticmaasho abal control D ayaa ku celinaysaa, control D ayaa ku celinaysaa, kadibna wuu isu keenayaa halkii uu soo istaagayaa wareeg. halkaas waxaa kugu cad in calaamad kasta iyo nooc walba oo wareeg ah loo suubin karo. haddaba haddii cashirkan uu ku caawiyey, like saar oo aad ku qanacday, subscribe ha iloobin. haddii aad awoodid inaad sii sheer garee, kusoo dhawaada Higsi Technology.